kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkii idaacada caalamiga ah ee Gary Global Network Radio. sida ay sheegayaan wararka naga soo gaadhaya degmada Mubaarak ee gobolka Daawa, wasiir ku-xigeenka nabadgelyada ee dowladda deegaanka Soomaalida Maxamuud Axmed iyo Maxamed Shaale oo ah madaxa xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida, kuwaas oo ka soo jeeda deegaanka Liibaan kana soo jeeda beesha Dagoodi oo uu weheliyo wasiir ku-xigeenka xafiiska arrimaha bulshada ee madaxweyne Mustafe, waxay isticmaaleen awoodoodii xafiiskooda ahayd, waxayna jabiyeen heshiiskii la gaaray bishii Agoosto ee ahaa inay qolo ku kala ekaadaan deegaankooda ama gobolkooda iyadoon la isku gudbaynin xuduudka labadii gobol oo ahaa webiga Daawa ilaa amar dambe si loo kala helo nabad. Mas'uuliyiintan aan kor ku soo xusnay ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ka dambeeyey dil degmada Mubaarak loogu geystay 7 haween iyo carruur oo aan waxba galabsan 7-kii Agoosto 2024. mar kale waxay ku amreen dableyda Dagoodi in ay u gudbaan dhanka gobolka Daawa oo ku taala malka wila ee hoosaadka degmada Mubaarak. Haddaba ha la ogaado in Maxamuud Axmed, Maxamed Shaale iyo Cabdi Fatah ee wasiir ku-xigeenka xafiiska arrimaha bulshada ee madaxweyne Mustafe ay mas'uul ka yihiin wax kasta oo ka dhici doona aaga Daawa, gaar ahaan degmada Mubaarak.